libaaxu waxa uu u ugaadhsadaa koox koox. Iminka waxaynu halkan ka aragnaa koox libaaxi ah oo ka kooban 8 libaax oo weeraray dibi ka mid ah loo-dibadeedka. libaaxa bareyga ugu adag ee uu ka baqo ee uu ugaadhsado waxa weeye baalka la yidhaahdo loo-dibadeedka. way iska celisaa, libaaxana halis bay gelishaa. iminka kooxdan waxaa hogaaminaysa kaali oo ah libaaxadda ama goosha xagga hore taagan ee iminka ugu horeysa waxa eryanaya. waxaa ku weheliya kaali 7 kale oo xubnaha ka mid ah oo u badan libaaxyo yaryar oo isugu jira lab iyo dhadigba. shaqada ugu badan ee libaaxa ee xagga ugaadhsiga waxaa ka mas-uula goosha. iminka ayay kaali soo gaadhay, way ku dhegtay, waxay rabtaa inay la qabtaan. waa ka diiday, waa iska riday. xaggan horena geesuu kala dhacaya. markay hawshu cuslaatay waxaa soo muuqday libaaxii aarka ahaa oo isaga markay hawshu adag tahay oo qura loo baahdo. inta kalena waxa uu isagu mas-uul ka yahay difaaca dhulkan ay ku nool yihiin. hadda ayuu shayda ka eegayaa, wuxuu arkaa inay shaqadiisii la gaadhay. hadda isagii ayaa diyaara. gooshii way u mari laadahay. xagga hore wixii istaaga geesuu ku dhufanayaa, xagga dambe markay qabsatana wuu iska tuurayaa. wuxuu leeyahay ma adigay wax kugu hadheen, soo bax adiguna iskaansii. waxaad moodaaba dibigii inuu hadlaya. wuxuu ihi iskaansii. waa laysu hanjabayaa. aarkii baa lafihiisa u khalkhalay markiiuu dibi 2 goor isaga xajmigiisa leeyay ku soo cararay. aarkii la islahaa hawshu markay cuslaato wax ka qabato niyadjab ayaa ka muuqda gooshii hogaaminaysay kooxda libaaxyada. waxay aragtay libaaxii aarka ahaa ay isku handaynaysay oo gelin horeba la eryaday. waar fure ayuu noqday. waa soo noqdeen, ma aysan quusan, iyadiina gaar buu eryaday. geed bay ka hoos gashay, nafta hoos gelisay. waxay yidhahdaan ingiriisku the hunter is hunted. ugaadhsadaha laftigiisii ayaa maanta la ugaadhsanahayaa. gooshii waxay isleeda waryaa kaa kaxeeya uun, waa kan hortaaganee la soo bax. dibi isu geystay oo 6 jir qooqan ah oo waxaan ku idhi xooggiisu xoog ka batay weeye. cid alla cid u babacdhigi karaysaa ma jirto. maanta kooxdii dikum daakum ayuu ka dhigay. haddana geeska ayuu la haleelay tii hogaaminaysay ee kaali. hadda wuxuu diyaaru yahay. ama idinku hadheen ayuu leeyahay. markii la iska luudin waayey wakaa iska noqday. haddii aad hore noola joogto waad ku mahadsan tahay. haddii aad nagu cusub tahayna fadlan sheerta iyo laygta iyo falowda ku camir. adigana waxba ka yeeli weyso, annagana waa noo dhiirgelin. mahadsanid.